بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد أسلامنتين ميلاد شوكتانبا. maanta halkan barnaamijkan oo aan ugu talagalay inaynu ku wacyigelino waxyaabaha ku saabsan caafimaadka guud ee dadka iyo cudurrada la dirsa Soomaalida haddaynu nahay dalkeena hooyo dadka ku nool iyo cudurrada ku soo kordha. wax badan baynu ka hadalnay cudurro sooyaal ahaan jiray oo ay ka mid ahayd gastrigu iyo calool adayga iyo cudurrada dhiigga. maanta waxaynu ka hadlaynaa cudurkan xumadda ah ee Soomaaliya, Somaliland, Puntland, geeska Afrika ba haysta ee xumadda loo yaqaano ayaynu ka hadlaynaa. waxaana jeclahay insha Allah dadku inay ka faa'iidaan kuna tusaale qaataan kana insha Allah ay noqoto badbaado ilaahayna uu ka xafido wixii dhibaato ah ummadeena. okay, xumadani waa maxay? dadka haysa ee lafaha jajabinaysa ee xaraaradoodu ay isku taagayso 40 maxaa ka koos garaya, xagee ka timaadaa, maxaa u dawo ah, maxaa u cilaaja, maxaa sababa, sidee baa la iska ilaaliyaa? okay, horta kow xumadan la afgaan waayay waxa la yiraahdaa xumadda waxa la yiraahdaa dank. af carabiga waxa la yiraahdaa xumad dank. marka xumad dank oo ay koos garayso waxa sameeya xumadan oo keena oo cudurkan u aaba ah horta waa virus. viruskuna wuxuu ka gudbaa oo qaada kaneecada waliba female-ka ah dhidiga ah ayaa gudbisa oo marka ay ugxaanta ay qaado ayay qofka ay qaniinto ayay u gudbisaa cudurkan. marka iyadoo cudurka qabta ugxaanta ay dhashaana iyagoo cudurkii qaba way ku dhashaan. qof kasta oo ay qaniintona waxay gudbisaa viruskaas oo dhowr qaybood ah aynu ka hadli doono. mid waxa jira xumad kaliya ah, waxa jira mid xumad iyo lafaj garaaca, mid waxa jira xumad iyo qofka uu dhiig sanka ka keenayo, waxa jira xumad iyo qofka uu dhiig saxaradiisa ay noqonayso, waxa jira qof mid xumad iyo qofku dhiig mantagayo iyo noocyo kale. marka sidee baa looga badbaadaa? xagee bay inooga timi? horta kaneecadan la yiraahdo baacudadan la yiraahdo baacuda masriya Egyptian zajic mosquito oo af Ingiriisiga ah. waa kaneecada zaacijka ah ee masriyada loo yaqaano. waa baashan cudurkan magaranaysa iyadu waa wasiilad gudbisa cudurkan oo dadka qofka ay dhiiga ay qaniinto ama iyadu qofka ay dhiiga ay qaniinto ha ku soo gudbiso ama iyadu qof qaba ha qaniinto oo hadhowtana qof kale oo bed qaba ha qaniinto. laakiin waxa keena kaneecada. waxaana u malaynayaa horta dee dhulka ay biyo fadhiistaan ayay kaneecadani ku dhashaa oo ay ugxaanteeda dhigataa meesha qoyan iyo dhulka biyo fadhiistaan. marka inta badan sida taariikhdeeda ay soo sheegeen waxa ay ku dhashaa dhulka biyaha leh ama dhulka biyo fadhiistaan. ama haddaanay biyuhu fadhiisan jirin oo ay biyuhu fadhiistaan inta badan way ku dhashaa. biyaha socda laakiin kuma dhalato, biyaha fadhiya bay ku dhalataa. sida ma garanaysaa daamamkan ama biyo xidheenka la sameeyo ama dhulka ay biyo ku haraan ama dhulka had iyo jeer la iska qoyan ee ma garanaysaa humidka ah aan ratabka ah ayay ku dhashaa. marka cudurkaas ay keentaa, cudurkaas ay gudbisaa. okay, aynu dib ugu noqono magacyadeeda. waxa la yiraahdaa dank ama xumad dankiya. abuuro ka bay carabtu tahdaa, danj bay yiraahdaan, adanak bay tahdaa, xumad taksiir al-cidaan baa la yiraahdaa, qaar baa la yiraahdaa xumad cadan
afarta nooc inta nooc ee ma garanaysaa afarta nooc ee virus ee sameeya xumadan wax la yiraahdo DAN1 iyo DAN2 iyo DAN3 iyo DAN4 waxayna ka gudbaan female-ka ama dhidiga kaneecada ee la yiraahdo albaacuda zaacija almasriya waana sababka u asaasiga ah xumadan la yiraahdo xumata danka dhinacan ma garanaysaa ukunta ay dhasho waxaa jira mid barabara leh oo aad moodid inay gashan tahay barabara cad leh waxay xiran tahay military af carabigana waxa la yiraahdaa baacudat an-namr al-asiyawi waana nooc naadir ah waxayna ku gudubtaa saan idinku sheegay dhiiga من شخص سليم إلى شخص قرف كلام يوجد بسا فيروسك من 4 إلى 5 عشو وحين قاعد كرتا إلى 7 عشو هنا يكسو بحضو علامات كعذر كني أوكي كان عدن أيضا سيدا كلا والله كان عدن الله يقانو إلى هذا أيدس إيجيبتاو أو يرى بني أما كافي أو علامات عدنا أي لغها كله يو شركة waxa weeye baashaasi jirkana fayraskaasi wuxuu ku jiraa muddo gaadhaysa min 8 ilaa 12 cisho waxay ku jirtaa fatrada xadaanada fayraska jirka uu ku jiro baacuudada waa 8 ilaa 12 cisho wuxuuna ku kacaa oo ku bataa kaneecada gudaheeda caloosheeda wuxuu hadhowto soo raacaa dheecaankeeda waxaan loo yaqaan qudada lucaabiya dheecaankeedu soo raacaa wuxuuna ku noolaadaa jirkeeda kama baxo mar hadduu galo jirkeeda kaneecadaasi waxa ay dhasho cudurkaasuu wataa kaneecada cusub ee ukunta cusub ee ay dhashaa cudurkaasuu wataa inta badanna dadka waxay qaniintaa subaxa hore iyo maqribka yaa ugu badan xilliga ay magasa kaneecadan ukunta wada ay qaniinto ama tan magaranaysaa female-ka ah ee magaranaysaa dhidiga ah qofka fatrada ay ku soo baxdaa marka ay qaniinto waa 4 ilaa 10 cisho gudahood ayay ku soo baxdaa virusku uu ku soo baxaa cudurkan wuxuuna acraadkiisa oo lagu gartaa horta wuxuu eegyahay hargab marka hore hargabad mudda marka dambe xaraaradiisu aad bay qofka u kacdaa ilaa 40 dig bay gaadhaa waxaana lagu gartaa inuu waxani uu yahay xumada aynu sheegnay danka la yiraahdo wax la sudaacaas madax xanuunka xoog ah iyo xanuun labada indhood dabadood ah xanuun muruqyada ah xanuun dhulka laabta garaac lafa garaac iyo laababka jirka dhulka laabta lafaha dhulka laabta yalaalugo iyo mantag badan mararka qaarkoodna waxaba ka soo yaaca finan baa ka soo yaaca jirkiisa waxayna acraadkaasi socotaa in inta u dhaxaysa min 2 cisho ilaa 7 cisho okay haddii ay dhakhtarka la raajicin waxa oo magaranaysaa ay acraadkaasi ay ku qasban tahay in markaa xanuunka badan ee caloosha iyo mantag joogta ah waxayba ku bilowdaa mararka qaarkood in dhiig ka yimaado ciridka in dhiig ka yimaado sanka in dhiig lagu arko kaadida in dhiig lagu arko saxarada ama mantaga inaad mararka qaarkood ku aragtay dhiig haraga hoostiisa ah oo sidii qofka wax la garaacay ama la dilay jirdil lagu sameeyo kale inay ka muuqato mararka qaarkood dhibaato neefta qofku qabato oo uu magaranaysaa uu neefta qaadan kari waayo jirka qofka oo mararka qaarkood baarid noqda oo magaranaysaa oo loonkiisu isbedelo iyo daal aad iyo aad u fara badan inta badan way adag tahay runtii in magaranaysaa la ogaado ama lagu garto cudurkan si degdeg ah calaamadaha aynu soo sheegnay waayo waxay isaga eg yihiin cudurro kale oo ay ka mid yihiin
malaariyada ay isaga egyihiin ay iska soo shaabahaan laakiin waxaa lagu ogaan karaa dhiig in laga qaado qofka oo la eego nooca viruska iyo natiijada ay soo baxdo in lagu ictimaado magaranaysaa faxaska mukhbariga ah ama laabka ah ayaa fiican marka waxaa jira daawooyin kaarjibin ah oo ka mamnuuc ah in qofka uu isticmaalo waayo inta badan qofkan nasiifkan ama dhiiggan ka baxaya wuxuu sameeyaa wax la yiraahdo sadmad ama shock ayaa ku dhaca waxaana uu sababa inuu qofku pressurekiisu dhaco oo inta badan uu down noqdo haddii pressureka qofku dhaco wadnaha ayaa istaaga qofka wuxuuna koos garayaa dhimashada geerida ayuu keenaa marka waxaa muhiim ah qofka in laga ilaaliyo dawooyinkan magacyadooda aan soo wadno oo ay u badan tahay dawooyin ku salaysan kaarjibinta waa in laga taxadiraa waxaana ka kow ah daawada sprinka la yiraahdo iyo daawada borofinka la yiraahdo ayaa ka mid ah dawooyinka ka mamnuuca ah xumadan dadka laynaysa in loo isticmaalo ka daaya dadka inaad u isticmaashaan kaarjibinta sprinka iyo borofinka iyo waxa la category ah labada daawooyin badan baa la category ah oo sababa inuu qofkaasi geeriyoodo waayo pressurekiisa qofka dhaca waxaana la ilaaliyo qofka pressurekiisa had iyo jeeraale qofka haddaad aragtid pressurekiisa qofkaasi inuu down noqdo qofkaasi geeri ayuu halis u yahay cudurkan wuxuu wax ku dilaa pressureka qofka oo dhaca ayuu wax ku dilaa wuxuuna ku dhashaa daawooyinka aan ku sheegay haddii la isticmaalo uu qofka pressurekiisu down buu noqdaa wuuna dhintaa iyo inuu dhiig baxo qofku inuu dhiig baxo hadduu dhiig baxo qofku low pressure baa ku dhaca geeri baana timaada marka waxaan dib ugu soo laabanaynaa siyaabaha loola dagaalamo kaneecada waayo waxa musababka ah waxay tahay carabtu idaa carafa sabab batal alcajab ma garateen marka dib baynu ugu noqonaynaa idaa haddaynu inaynu sababta aynu marka hore la cilaajo waxa weeye sida loola dagaalamo kaneecadan okay horta sida loola dagaalamo kaneecadan iyo magaranaysaa qaniyadeeda horta waxaa jira kareemo jirka la mariyo oo magaranaysaa maanacda inay dadka qaniinto waxaa ka mid ah inay dhulka ay ku ururto biyuhu fadhiistaan lala dagaalamo ama la qallajiyo oo lagu buufiyo maadooyin hadda mararka qaarkood xataa tawaankida biyaha ee guryaha dushooda saaran bay gashaa bahashani meeshii biyo laalin oo dhan bay gashaa ay ku ururtaan marka waxaa fiican in magaranaysaa dhulkan dhirta lagu beeray ee biyuhu fadhiistaan iyo ee guryaha yaalla iyo dooxooyinkan magaranaysaa biyaha dowladda looga baahan yahay inay buufiso maadada waxaa jira lagu buufiyo waxaa jira wax eriya iyo wax dila dadku inay dhar magaranaysaa dheer laga xidho qadaha iyo laga xidho shabaga lagu xidho in la buufiyo waxyaabo badan baa jira oo dee magaranaysaa temporary sida magaranaysaa shabaga kaneecada mara kaneecada loo isticmaalo in lala dagaalamo oo in viruska lala dagaalamo oo kaneecadaas ay ka dhammaato si magaranaysaa ilaa hadda lama helin vaccine ama tallaal ku saabsan xumadan la yiraahdo xumada dank sacuudiga way ku dhacday yaman way ku dhacday masar way ku dhacday waa baxay magaca gula baxday yurub way ku dhacday maraykan way ku dhacday inta badan laakiin meesha uu maro kala qaybiyaha waxyaado khatal istuwa iyo manaadiq istuwa ayay ku badan tahay inta badan cudurkani oo kasoo ku magaranaysaa ku biirsamaa laakiin hadda dalal badan ayay ku fiday oo ay magaranaysaa ay ku dhacday waxaanu ilaahay ugu rajaynaynaa dadka ay ku dhacdayna shifa insha allahu tacaala laakiin waxay ku fiican tahay qofka marka ay baasaasha ku dhacdo wuxuu qaataa oo wuxuu yeeshaa waxa la yiraahdo antibody waxay u noqotaa tallaal marka mar labaad kuma dhaco haddii ay mar ku dhacdo qofku wuxuu qaataa manaacad buu sameeyaa jirku viruskaasi lid ku ah
oo aanu dib dambe ugu dhicin. laakiin waxa laga yaabaa inay nooc kale oo dankiga dee waa magarasa afarta virus hadba kii ku dhacay kusoo noqon maayaan, laakiin afarta virus hadduu ka kale ku dhaco haddana cudurkii wuu kusoo laabanaya, laakiin inta badan kuma dhaco. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaanu idin rajaynaynaa insha allah min allahi salaama. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.